ولا أصحابي سوري هذا سوري أصحابي سوري أصحابي سوري هذا قال هذا خدك يقطع خدك يقطع به قال نقطة هالنقطة قال هذا يا عندما ذاك أنا صابر ترى مرة يبغى يقدمي بالك يقدمي سوري هذا See over 1 billion shades of color. And every detail comes to life with deeper black. See nothing else. عدك شو عادي ما أصحابي ورشد دورد ولا تطمني ولا تطمني محمد مغلوب يعني هذا سلو أفكار كتاي ويقول والله التوسي يقول صور يا وريان ميا يقول صور عمولا ميا يقول صور علن كميا يقول صور ودني بنا سلو أخذ كيف أحمد وريان ميا يقول صور عمولا ميا يقول صور علن كميا يقول صور ودني بنا أفطربو على شحيرو وتوكداد اسكيجي أفطربو يا يري كتري أيا هدلك يا يري كتري ومقالدي اسكوريس واحد أخلاق دبارو صوبارو أخلاق ما أنا هلا أخذ كيف أحمد البيتر كوبك قبل كسي وأدك شعب بلدين يا هاي يلا تشطي قبل adiga ka daran mixiya haddee tahay arsenal ba tahay shacabkana wuu ogyahay ma ilowda tii shalay caaqow barlamaanku arag xagge aadiya horyaan miya igu sawir عمولا ميا igu sawir يقول صور مسمع أكثر ما يقول صور wadani barahay kaalayska يقول صور horyaan miya igu sawir camola miya igu sawir ما يقول شيء حقيقة شيء نادينا ده wadani barahay kaalayska haddaan dhinto aniga maanta hooyo walba Soomaaliya ka dhintay markii ay boqoray mana dhaafi doono waxba ha goodin hay goodin yaan ka dhashay yaan se ku dhaartaa ciyaal xamarka ee keyga lore
ciidankeena gaashaan iska baro afxarago wadani hubaysan dabti huraha magabada ogow isdeji xududka ha soo dhaafin ana ku doortay shalay ku keenay ana ku ammaanay saaray wadani ku mool ina aabow daacad ma tihid iigo aragaada nacay iigo tuugada cusub ay sheegan yahu waryaan miya igu sawir camoola miya igu sawir calanka miya igu sawir wadani baraay kaalay iska waryaan miya igu sawir camoola miya igu sawir calanka miya igu sawir wadani baraay kaalay iska heestani dowladda mustafa aad u taabanaysaa waryaan miya igu sawir camoola miya igu sawir calanka miya igu sawir wadani baraay kaalay iska waryaan miya igu sawir camoola miya jawro iska daya calanka miya igu sawir wadani baraay kaalay iska oday jiroodaha masanuguleyda abriska ooman eyiga ooya abisada jiirta galayka gaadi isugu xirtana mugdiga aaso sixirka tugsada oo oronka kuraaxa fidnaarta cuna oo dhiigga sayro ubadkeenna xinjirtooda cuna aaba socoto maskiin la mooday ina bulaale ina igu sawir arjigaada badda qaaday hadda iscasil haddana dhaaf intay goori tahay haddana dhaaf inta nagu filan haddana dhaaf waan ogaanay wadani matiib afkaad ka tahay waa igu wallaahi itoosi igu sawir yaahu waryaan miya igu sawir camoola miya igu sawir calanka miya igu sawir wadani baraay kaalay iska waryaan miya igu sawir camoola miya igu sawir calanka miya igu sawir wadani baraay kaalay iska afturumbo calosha xiro watogadaada isgiiji afturumbo عمرو قاعد ما قلت هذا قاعد سوتو عبد الرحمن يسوق صلاة شو لا صلاة فرقت عاد ما شفت له وأدك شعبك بلدنا هاي يلا تشطي قبلك وبيري يا كوالي عقلك كاحا عمر ما شفته إدرت تركك شو adiga ka daran bixiya hadeer tahay arsenal ba tahay shacabkana wuu og yahay ma ilowda tii shalay caaqow barlamaanku arag xagge aadiya waryaan miya igu sawir camoola miya igu sawir calanka miya igu sawir wadani baraay waryaan miya igu sawir camoola سنة miya igu sawir يا نقع عمر بس أقبله igu sawir يا اسمع لو بحضر صداي عمر أبوك سلامي ويقعي خدك يقعي برامج كروان نسوق تمر مرينا سلطان كنا وصلنا قناة هستن يقول صور بلنا عوان كنا وحنا كنا سوق روارتي دولة الصومال استيد مصطفى أكثر ما وطليا مع عند وذاك بدولتك مع ألف بدولتك وطن كيان نكوجناي طبعا كنا ولا سوق تمر وقل waa mahadsan tahay topic waa topic fiican oo in laga wada hadlo oo wax la isu bayaamiyo ku habboon weeyaan ciddii wax garanaysa ciddii ay caadifad qabiil qaadayso ee maaragtay marka meel hagaajiya la is yidhaahdo u qaadanaysa in duulimaad lagu yahay raysaaq ama ina agjarna waa aragti kale weeyaan oo waxay isla boodboodayaan kuwa aragtida gaaban iyaguna leh ee qabiilka maaragtay ku hadlaya marka arrimaha labaan u kala qaadanaa mar waa qabiil buu nin waliba horta ku salaysan yahay sida aniguba midaan ugu salaysnahay qabiil kastana suldaanka u leeyahay marna waxa weeyaan sidee dowlad soomaali isteeda aynu u wadaagnaabaa meesha taallaa oo aynu buuggii qabyaaladda waxoogaa dib dhinac isaga dhignaa oo soomaali state ama soomaalida etoobiya ama soomaali galbeed ama haddii laysku raacaba haba farcaan bay ogaadeen iyaba haddii laysku raaco habana qaataan bay haddii ay wax hagaagsan keenayaan wuxuuna haddii laysku raaco way fiican tahay laakiin anigu su-aalaan qabaa waxyaalahaas oo dhan jawaabtoodu ay ka dheeraynayso ama ay ka fogeynayso inay meeshan dowladii ka soo aslaanto
waxay isweydiin lama taqaanaa ma dhulka qaar iyo dad qaar oo degan ayuunbay dowladdani dar yeeshaa ama xadka ha ka tallaabsanaadaan ama xayntaabka xadka gudihiisa ha ku jiraan sida tusaalaha haddaan usoo qaato somaliland dagaaladii ka dhacayay waa loo gurmaday why not mooyaale sheekada mooyaale xataa hadalka waa lagu taageeraa dadka looga hadli laayahay maxay tahay anigoonan u jeedin oromo anoonan soomaali u jeedin laakiin dadkii soomaali bay yihiin dadkay saayaana waa qoomiyad kale maxaa loo dhexgeli kari waayey lamaa magarsa wuu ka hadlay isagoo si u dhigaya indirectia oo leh dadka deriska nala ah qoomiyadaha deriska nala ah ee dagaalada ka wada shaqaanu ka qabanaynaa iyo waanu eegaynaa labadaba way isku dhex daray kii innagu aynu idmanay gacanta lasoo qabtay meesha la keenayna xitaa wuu ka baqayaa inuu xitaa ka hadlo qubi bay ka dhacaysaa mayumuluq baa ay ka dhacdaa dirdhabay marmar ka dhacdaa inkastoo arrinta dirdhaba ay midmadow ku jirto oo ay laba soomaaliyeed oo sidaad mar dhaweed sheegaysay laba dir oo isku taagsanaya ay ahaayeen ciise madoobe iyo gurguray ahaayeen sababtan uga aamusnaana sababtaabay ahayd marka qoladii qolada kale in hore loo dhameeyo taa kama hadli karna laba beelood oo soomaali oo dagaalamaya waxaynu uga hadal laba anigu waxay la tahay waa doqonnimo unbalanade waa runta maya tusaalaan usoo qaatay moogtahay markaad gaadhiga highwayga saaran tahay markaad shidaal kaa yar go-ayo meel baad ku yar leexanaysaa shidaal baad qaadanaysaa marka si ay dadku wax u fahmaan waa inaad meelaha qaarkood ku leexataa sida geri iyo jaarso oo kale oo laba soomaaliya oo maaragtay labadaas soomaalidii ay muddo dheer islaynayeen ilaa intaan anigu garanayo ilaa nabi ciise dagaalamaya ilaa nabi ciise war 40 sano way gaadhaysaa markii soomaali galbeedda la dagaalamayay ayuunbay kala nasteen inkastoyna sidan loo buunbuuniya ayna ahaan jirin facebook inuu jiro oo lagu dagaalamo media may ahaan jirin inan iyo abtigii beer isku yara qabsada oo manchester isla dhaca xataa rasaasta ayaa yarayd laakiin hadda waxay gaadhay moogtahay technica iyo meelo ka sarreysa gerina anu waxaanu aqaanaa dad fiican baanu aqaanaa way dhaleen waa reer abtigay dad xun anigu kumaan ogeyn dee generationka dambe hadduu xumaaday waa la iswada xumeeyey ma garanayo jaarsana aniga dad xun kuma ogi ilaa haddana kuma ogi kumana ogaan jirin waan isnaqaanaa magaalada jigjigan ku wada kornay waan wada qaxnay jabuuti waan wada joogaynay maraykan baan wada joognaa meelo badan baanu iskaga soo horbaxnaa taariikhdooda waan hayaa tayda way hayaan dad xun uma aqaano laakiin ta iga degi weyday baa waxay tahay mataqaanaa jaarso ayaa orama ah ayaa iga degi weyday marka taas waan ka dhiidhiyey waan ka damqaday ama ha loo qaato inay jaarsay xigto ama ha loo qaato waran aan igu soo socdon gaashan isaga dhigayo haddii sidaa lagu oromeeyo jaarso yaa ku xiga daahirow waxa ku xigta akisha haddii sidaa hadda miiskay saaran tahay inaanu liiskaa samayno akisho oramo ku qornay miiskay saaran tahay adina kadib baan soo saaraynaa ha i dhegayso taa markaa akisha marka ay laga takhalluso ma saasay ku dhammaanaysaa yaa ku xiga meesha taalla reer waaqba cumar aynu kaa ku dambaynaya tobigii waxaad ku soo noqotaa golaha wasiirada ee u fadhiya inay qanciyaan saddexdaas su-aalood horta midka saddexa ka jawaab marka hore taa aanu soo laabaynaa waxaa ciwaanka ku soo qoray dowladda ma Somali State Mustafa ka taliya maseejyadii candhawadaag baa ka taliya in cagtar ee groupka Raysaaqa ka taliya ee qolaa reer Cabdilaahi iswada qaba ma oolad baa ka talisa waddanka yaa dowladka wasiiradan wasiiradan xafiisyada fadhiya ee u fadhiya inay cagtar shaqaale badan ku qanciyaan oo beeshiisa ayaa la rabaa in laga hadlo Soomaalida reer badan waxa jirta wasiiran lahayn madax aan lahayn madaxtooyada cidi ka soo galin shaqo aan heli karin xafiisyadii waa la isoo abtirinayaa wasiir kasta madaxweynaha inuu iska dhisu rabaa waxaa la marayaa dulmidiidkii qaybo ka mid ah inuu calasho soo suuqa isagoo jooga xil u hayana ma naqaano qadaraasyadii dowladda gacantu ku haya keligii cid kale ma dhaqdhaqaaqi karto soo lama odhan karo beel xididaysan baa waddankii qabsatay halkaa tataabo waayahay maya meeshan su-aashaad weydiisaa tiri ina cagjar ma isagaa taliya mise oo nelfa ka talisa cidda ka talisa mise candhawadaag
hadday mise dadku candhawadaag qaadanayaan cumar iyo haddii mise kaleba candhawadaag hadda in cala shooca madaxweynaha amar una bixin buu bixinaya waan lagu dhaqaaqaya kuwa kale walaalood qabana waa noocaas kuwa soddonka loo yahay waa noocaas soo lama odhan karo markaa beel ama candhawadaag baa qabsatay waddankii dowladda lama odhan karo waxa lagu tilmaami karaa ma jiro soo lama odhan karo horowgal raygaaga dhigo ها si fiican baan kuu fahmay horta meeshan somali state meeshan looga taliyaan kuu sheegaya hadday dadku qaadanayaan iyo haddii kaleba waa sidaan anigu u arkay ciddii u arki weydayna iyaday u taallaa meeshan waxaa looga taliyaa maamulka kenya nimanka ogaadeenay joogaa faaraxa macallin iyo aadan roble ducaale iyo axmed madoobe daarood oo dhan ayaa meeshan u soo taliyo email baa loogu taliyaa haddaad qaadan iyo haddii kaleba marka la dabaaldegayo waa laysu wada yimaadaa marka uu talinayana waa lala taliyaa email baa loogu soo taliyaa marka email ama facebooka ka qayli ama aan ka qayli emailka markaa waxaa ku qoran xafiisyada wasiirada dowladdu inay beel qura u shaqeeyaan miyaa ku qoran markaa oo la yidhahda madaxweynaha iska dhisanaa ilmaadeeradii keliya shaqaalaysiinaynaa qandaraaskii ilmaadeeradii keliya qaadanaya no taas waa xarfadda marka la sii sarrifo weyn meesha looga taliya waa halkaas sidee markaa taladii u qaataana way taalaayoo xafiisyada waxaa lala fadhiyaa kaarar qabiil baa lala fadhiyaa haddaanad ree isaaq ahayn wax lagu fududaynaya mataawaqiya ugu yaroo ma helaysid ree cabdillah haddaad tahayna waa kuwa ugu liitay iminka la ugaadhsanayo anuu akishaa ku dhaama iminka jigjiga run haddaad doonayso waayo ree cabdillah wayna dhibi jireen inaan u dhiba maaha hadda iyagaa la dhibaa oo la ugaadhsadaa waxa ugaadhsanayaana waa ree isaaq maxay isku yihiin maxamed subeer iyagaa walaalaa markay heshiiyaanna dadka u daran markay islaynayaanna dadka u daran fahamtay dulmidiid aan usoo noqono dulmidiid wixii ay diidanayd waa laga yeelay qayladoodii hadda way dantay adigaa ku hadhay hadal oo daahira iyo dhowr nin oo kale oo waxay ka hadlaysa aan garanaynin adu waaba taqaana waxaad ka hadlayso dulmidiid waxay doonaysay ee kontraadkii baajedku ha yimaada baa la yidhi hoostaa looga seexay cidda ku hadasho dulmidiida dulmidiidina cala shooca ayaa wiil kalaa madaxtooyadii ku jira magacii dulmidiid odhan jiray beerahooday qodanayaan adeer ma jirto anaa taa ku hubayn adeer anaa waxaa mar kasta qofka liintiisa looma diido waxaan kuri dulmidiid buu ahaa ina cali shooca baa wax kastoo dowladdii ka qaadanayeen iyo saddex nin oo kale oo madaxweynaha almadareey sor taagay koobna kama cabaan madaxtooyadana ma gali karaan waaba la karbaashayaaba dulmidiid waxa la dhaha ma jiraan jeel baa la geliyey oromaa tiin baa laleeyahay dulmidiid soomaalidii waa laga saaray dulmidiid waddadii jaarsaday mareen wax waddanka looga ogolayaa ma jirto run baan kuu sheegayahay markaa dowladdan macandha wadaag baa lagu saaraa ma olafons madaxweynena shaqadiisii intuu ka tegey wuxuu ka shaqeeyaa soo dhoweyn habar kastoo calanka olaf xidhatay buu u taagan yahay ama taariiba ka timaado ama aa shaqo tagto waan ku fahmayaa in musheekhdii xitaa lasoo xidhay jidwaq musheekhoodii ama abaskuul ha u badnaadana lasoo xidhay waan la socdaa taasina waxa weeyaan waxay ku tusaysaa xitaa xaggii diinta in lagala dagaalamayo kontraad baad u ka hadlaysaa waxaa lagugu qasbayaa in haddii lagu xadiisayana aad umal iyo dhegaysato oo sheekh abaskuule la waaye baa lagugu qasbayaa war isuma haysid hadhowna berri baad iila imanaysaa aniga absamiyo waxaan loo joogin diintii baa lagaala dagaalamayaa in cali shucaac aan usoo noqono isagii aabihiiba way isgarab cararayeen dadka soomaalinimay tuseen markii dambena inta loo yeedhay oo beejka kor loo rogay baa la yidhi hoosta waxa ku qoran maaragtan haa waxaasaad helaysaana filika dhinaca kale u rogaan iyagaa kontraadka qaata iyagaa dowladda u taliya iyagaa maaragtay la taliya ina baalkana wixii magaalada rabshad ka ridaya iyo wixii ra'yi la keenaya ee la odhanayo dadkii indhala-aan si aynu kusoo ridnaa aanu buufino ina cali shucaac bay ka soo baxdaa wasiir maaha ku-xigeen maaha la taliya maaha derajada uu haye uu laankuruusarka ku wato uu baajedka intuu doono bankiga uu uga qadhiidanayo uu bilaan jeegga u wato jeegga bannaan wuxuu doono ku qoranayo u wato maxay tahay ii sheegi kartaa marka ina cagjarna hadduu leeyahay walaalkay baa beri la dilay oo magmaan meesha ku fadhiya ina cali shucaacna gabadhan adeer u ahaybaa silig lagu deldelay dee ninkii nin laga deldelooba la kaalay evidencega la kaalay meel baa lagu siinayaa meeshu maamulkiiba hadduu noqdo waxbaa layga deldelay iyo waxbaa layga dilay hadday noqonayso ina cali shucaac ina cagjar baa walaashii qaba meel baan ku iftiiminayaa
ina calash ilma gabadhii ilma calashooca intii qabtay intii laga qabay baa meel isugu timid iyo reer cagjar baa meeshii isugu yimid candha wadaagta aan fiila dhagax buuran ku sheegayna horta intaa weeyaan taladii markaa markaa waddanka ka talisa cagjar baa taliya ma candha wadaag baa talisa xaguu ka keenayaa shaksi seedilooyo walaashii la qabo inuu saraakiishii durmadiidka ugu hanjabo jigjiga iyagoo jooga ama qabri bayax ama dhagax buur oo taladii waddanka shaksi aan xil haynin gaadho maxaynu dowladda ku macnayn karnaa reer cabdiliyaga waa la baabiyey iska dhaf waa masaakiin kuwa soo qaxeenay dowlad kasta oo dhalata iyo qof kastoo yimaada waxa uu leeyahay ilmaabti ilmaadeer habar wadaag reer ayey reer macoy ayuu leeyahay hadduu qabyaaladda sii fidinayo ina cagjar gabadhan uu qabee ina cali shucaac iyo reerkooda iska dhaaf ta horuu qabi jiray xitaa ayaan ka maqnayn oo reer xoosha ee saddexda carruura u leh gabadha isaaqa ah waan gartay oo qoyska reer muuse cabdi reer muuse dheere ka soo waan jeeda gartay ninka caanka ah ee qoraaga ah ee cali muuse cabdi la yidhaahdo ee u shaqeeya qoladii maxaa la odhan jiray AFP agence France Press u shaqeeya gabadhu adeeru yahay weeyaan waa hadday gacalnimo wax qabanayso soomaad garan ina cagjar kama bedelna kuwii hore ee habar wadaagii waxaan laakiin isaga waa lagu batay wuuna caddaystay haddii haddaba ay noqonayso wixii ii seediya iyo waxaan habar wadaagnahay iyo waxaan ilmaabtinahay unbaan meesha ka buuxinaya maxaa looga waayey axmed shide ilmaadeeradii meesha inuu ku buuxiyo kartidaa ma leh maxaa looga waayey qaar bay habar wadaagihiina maxaa looga waayey qaar bay ina sida kartidaa ma leh male kartidaasu inuu yidhahdo akishay soo urura kartidaa ma leh ma karti buuna lahayn mise xishoodka annaga ishaan anu xishood u malayn maayo sababtaa xishood hadduu jiro ina cagjar ba xishoon lahaa eeg walaashii nin la qabo madaxtooyadii fadhi eeg gudoomiye meel gaamax kaa tusaya ina cagjar wasiir ma aha dulmidiid buu ahaa dulmidiidkii albaabka laga xidho meel bay fadhiyaan qandaraas qofkii la saynaya isagaa saxeexa seedigii kaloo gabadh kala qabo isna wasiire baa jira oo gabadhina qaba maxaan ku dhahdaa cali shoocaca karti waa karti la isleeryahay haddaad saraakiisha dulmidiid weydiisana way kuu sheegayaan ina shidana waxa weeyaan arrimaha dee anu garan maayo siday ka tahay markaasoo lama odhan karo cabdi maxamuud gudoomiye sow lama odhan karo dowladdii cabdi maxamuud cumar baa haddii awood qaybsiga la yidhaha boqolkiiba boqol dhaanti sababtoo isagoo afar habra wadaagyadiiyo seediyadii ku jiray ummad soomaaliyeed oo kale wax ka cunayso dadka wax la qaybsanaysay miyaan la odhan karin cabdi maxamuud cumar baa 200 oo goor ka fiicna cadaalad marka taa noqoto oo sababta waqtigii cabdi maxamuud cumar ii kali nin intuu wax soo waxtamo nin banaanka ma ugu hanjabayno ma odhan jiro waxaasaan ku siinaya madaxweynihiisa qofkuu dowlad diri jiray qofkuu dowlad wax siin jiray hadda waxay maraysaa madaxtooyada shakhsiyaadkii soo galay ama beel ahaanta ku soo galay ama seedinimada ku soo galay dadkii dhulka u dhashay inay ka cabsadaan oo durba ay kala sarrayn diintii oo kale ka bilaabatay jisiya orogol horta waa saas u sheegayso laakiin inta yar aan ku dhammaystiray inta axmed shide horta qabyaaladisti maaha aqoontaa wuu leeyahay tolkiina wuu yaqaanaa maalin dhaweedoo fadayga lagu shirayena aabiyii uu ka soo qayb galay meesha fadayga la yidhaahdo wuu joogay waxa ka dhacday igu sawir baa ka dhacday waa laisku wada garab sawirayay odayga sidii wax lagu heli doono oo qabyaalada kama maqnaa laakiinse soomaalinimo isagu ka doorbiday tolkiina wuxuu ka codsaday mataqaanaa walaalayaal oo soomaalinimada miyaad ii quuri laadin may waan kuu quuraynaa baa layidhi faraha laga qaaday wax alla wuxuu samaynayo waxa amaale gacan soo taago ogaasay cumarow waad ka baxdaan malaynaya saaxiib haddaay maqlaysaa waad ka baxday caawa mooy wirelesski waxbaa siigaa baan malaynayaa ma fayruus badan baa lai soo diraya waxbaa kulli qaldan wax qaldan ma garanayo ya waxbaa kulli waxbaa iga qaldan caawa laakiin waan ogaan doonaa kulli waxa qaldan baan ogaan doonaa dhammaantiina gacmaha soo wataagta waan soo qabanaynaa qof ka soo hadlaya ya arrintiina halkay marayso waad aragtaan waynu arkaynaa qabyaaladii 200 oo goor bay gaadhay maraysaa waynu arkaynaa xishood la-aan baa meesha ka socota xishood la-aanta ka socotana waynu arkaynaa qaabka wax loo maamuli doonana anigu kolley ma garanayo xududihii dagaal baa ka wada socda dadkii soomaalida way qaxayaan dhibaata haysata
dowlad la-aan baa waddankii ka jirta cadaalad la-aan baa waddankii ka jirta wanaag la-aan baa waddankii ka jirta sinaan la-aan baa ka jirta dowladdu markaa igu sawir bay noqotay dowladda mustafa cagjar waa igu sawir igu sawirna kolley meeshayna geenaysa anuma garanayo igu sawir dowladda yidhahdaa meeshayna geenayso anuma garanayo waa ku soo qabanaynasow igu sawir bay sheekadayni maraysaa igu sawirna halkay tegayso dee anu garan maayo hadday filinkii noqday igu sawir ninkii dhanaayo waddanka loo doortay uu noqday igu sawir anu garan maayo halkaynu tegayno cumar baan kusoo celinaya ha dhamaystee dowladdiina ugaasha gacan soo tago dowladdiina wataas waynu faanaynaa waxaan leenahay isbeddel baan keennay dimuqraadi baa waddanka ka jira wax ka jira ma jiraan waa zero weeyaan dowlad wax la yidhahda kama jirto wax u eegina ma jirto sawir dowladood u xelayna ma jiraan candhawadaag seediya sodog baa waddankii dowladka gabadha iyaduu qabaa walaalkay baa qaba habreertay baa la qabaa dowladdii intaasay noqotay ganacsigii uu mustafa cagjar lahaa dadku xor weeye qof kasta wuxuu dooni keeni karaana meesha way ka baxeen dad gooniya baa gacanta ku dhigay dad gooniya gacanta ku dhigay shaqadii fiicnay dad gooniya gacanta ku dhigay amnigii dad baa gacanta ku dhigay guddiga raale waroga dhamayso khadka iga xumaadee jar bay u taallaa oo madaxweyne meesha ah exactly waa sidaas weeyaan taas waa taa weeyaan marka inaa cagjar anigu waan dhaliilay waxaanan ku dhaliilay waxa weeyaan mataqaanaa waxaan garan laayahay oo aan weli baaritaan ugu jiraa cidda la talisana ma aqaano cidda uu talada sharcigeena garayna cumar hore u goorta uu qoslana ma aqaano hore u soco in sida ma u taalo in cagjar ba u taala inuu ka hadlo weliba gabdhahaad sheegaysaa ha u badnaadaan anu gabdhaha ina sida wasiir ummadda ka dhaxaysana sida weeyaan laakiin cagjar baa gooni soomaalida waa isaga u taala ina sida uma taaladaas kuwan aan wilka ahayn dumarka magacyada u kala bixiyo yaqaanee laakiin dharkoodu u kala qaalisan yahay baryahan waxa ugu qaalisan calankaas waa saddexdii kalaroo la isku tolay iyo kii soomaaliya oo dhexda la geliyey waa calankii soomaaliya caadiga looga baqi jiray oo dhexda la geliyey igu sawirtaasaa socota haddaba waxa isweydiinle waniyahow gobolkan soomaalidu degto ma magaalada jigjigo keliya gobolka faafan oo keliya miya gobollada kale wax hadal haya iyo wax baajidkoodii u diray iyo wax maamulkoodii hadal haya maan arkin meel kasta waa la isku haystaa marka waxaan u malaynayaa ma signalkayna lahayn ma wifi bayna lahayn ma internetka laga xidhay weerarkoodu wuu kooban yahay gobollada kale waa intan un maaragtay dhagax buur yaxayna wereeriso un jigjiga imika marka anigo sidan haddaan la isu dhaamin dee etoobiya waa tan ciidamadii badda samaysanayse soomaaliya badeeda qaadanayse caadi ha naloogu sheega dee gobolladaas soomaaliya inaan iskaga sii durugno oo aanu maamullada kale ku biirno kan soomaalida hadduu shaqayn waayo maya horta ninkan lama yaabayo oo 2 sana loo qabtay 2daas sanana waxaa imaanaysa doorashaa imaanaysa doorashaduna waxay ku imaanaysaa xisbiyo ninkanna xisbigu ka tirsan yahay lama yaqaano wuu og yahay inaanan mar labaad la keenaynin marka igu sawir iyo jeega maxaynu ku macnaynaa marka mustafa nin qabiilu shaqeynaya ku macnaynaa isagoo milyaneera nin xilid iyo candhawadaag u shaqeeyaan ku macnaynaa maxaynu ku macnaynaa igu sawir baan idhi anigu madaxweynaha igu sawir shaqadiisu waa sawir bes maxaynu ku macnaynaa hadduuna imika ku biirin xisbiyada meesha jira mid ka mid ah oo loo badinayo welibana ONLF haddayna soo sharaxanin si kaloo meesha ku iman kara ma jiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay caawa waxba siigaa kolley waa markii saddexaad ee soo gala life baan u malaynayaa
ummadda Soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay Somali State baa loo baahan yahay waa inay toosaan Hala. boqolka ma maqashaa si fiican baan ku maqlaa daahirow hore uga saaxib way hore caawa halkay ka shidanta igu yartoosin yar ya waa lagu soo celin marrow ya halkay ka shidantahay igu sawir weeyaan bashiirada soo dhow dadka markaa Somali State jooga waxaan leenahay toosa dowladda idinkaa leh afarseed iyo isooya gabdha kala qabaa waddanka male idinkaa waddan kale baan leenahay qabiilku ha dhaca baan leenahay kala sarrayntu ha dhacda baan leenahay Somali State India noqon maysaan leenahay India ayaa dabaqale kala sarraysa dowlad markaa la 3 bilood joogtay in dadkeedii kala sarreeyaan oo ay kala aragti noqdaan oo ay kala duwanaadaan Mustafa Cagtar waxaan leenahay laga yeeli maayna ka yeeli mayno dowladda ka dhigay xaafadooda kaliya dharisan tii mid la mid ah timid oo ka daran oo gaajoonaysa waliba timid oo aan shilin haysanin oo faaruqaba timid marka sheemayu baa leenahay Mustafa iyo maamulkan uu watay candha wadaag anigu dowlad odhan maayo caawa laga bilaabo odhan maayo madaxweyne ku-xigeenka aana ku siismaha Mustafa Maxamed Cumar waxaan leenahay arrintan shaqayn mayso fiila dhagax buur inta la galo rag soo galaan aan xil dowladda u haynini inay dadka soo canaantaan oo dadka u anjabaan oo qayb soo xidhaan oo ciidamada maamulaan oo qabyaaladu cirka ay gaadho Mustafa ma yeelina ku leenahay yeeli mayno qabyaaladu ha waarto wadaa laakiin qabyaaladu ha waarto waari mayso waana la iska ka qabanayaa Mustafa una xilka iskaga dib baan leenahay intaadan ceebo xilka dib baan ku leenahay intaadan ku ceeboobin meesha xilka iskaga dib baan ku leenahay because intaa wixii ka dambeeya waa ceeb ma dhicin dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar shakhsiyaadkii madaxtooyada galaan inay shakhsiyaad isla dadkii dowladda keenay ee isbeddelka keenay la yidhaha caburiya dulmidiyada caburiya madaxa kaga joogsada ee shaqooyinka u diida madaxtooyada ay soo gelin curyaamiya nal ku shida waa qabyaalad cad baan leenahay taasi waa qabyaalad cad baan leenahay Mustafa qof yaroo miskiin oo qurbaha ka tago ceyr qaadanayay ya intuu madaxtooyada fadhiistay inuu shakhsiyaad sharaf badan loo dadkii gobonnimada keenay uu soo u anjabo oo loogu anjabo la qandaraas dulmidiyada oo qaadan maysaan waa qabiil cad baan leenahay taasi qabyaaladu ha dhacdaan leenahay Mustafa ha dhacda candha wadaagi baan leenahay kuwa inta xun madaxtooyada ka wada ha dhacaan baan leenahay madaxtooyadana waxa weeyaan sidan ku socon mayso dagaalkiina dib baan u soo celinaa waan cusboonaysiinaynaa baan leenahay haddaad Mustafa Cagtar oo tiri qabyaaladu ha waarto xididku ha waaro candha wadaag ha waarto madaxtooyada saa doontaan ka yeela dadka Soomaaliyeed inta seediyada xididka oo ku tunta sodogyada oo ku tunta odayaasha dhaqanka ha la xidho culimada ha la xidho halala dirna dadkii banaanka digriyay Mustafa uu shaqayn mayso dagaalkiina dib baan u soo bilaabaynaa abiye baan ku bilaabaynaa adiga abiye baan kaaga war bilaabaynaa because wixii lagu igmado oo dhan waad ka tagtay qabyaaladu ha waarto baad Mustafa u leedahay ha waarto qabiilku ha waaro qabyaaladu ha waarto sheekadaad weeyaan qabiilku ha waarana markaad tiraahdo waxaan leenahay cadaaladdu ha waarto nabadgelyadu ha waarto sinaantu ha waartaan leenahay kala sarraynta iyo qabiilka iyo candha wadaag ha dhacaan baan leenahay caawa laga bilaabana shaqadan kaa qabanayna waad ogtahay xafiis baa aroortii loo tegayaa oo looga soo warramayaa xafiisyadaada waa la tegayaa boqolaal xafiisna dhaleertii tagta waa la xidhiidheen waa nala soo xidhiidheen xafiiska maaliyadda keliya laga ayaa nabadgelya oo dadku caadi ay u tegi karayaan Mustafa Cagtarow xafiis kale ma jirto xafiiska maaliyadda keliya bay dadka Soomaaliyeed tegayaan oo caadi cadaalad u shaqaynaya inta kale xafiis oo shaqaynaya ma jiraan waa ku salaamay Mustafa marka ha dhaca baan leenahay cadaalad darrada ha dhacdaan leenahay kala sarrayntu Mustafa ha dhacda baan leenahay cunsurinimada ha dhacda baan leenahay wasiiradan Mustafa inay u shaqaynayaan moodayona waxaan leenahay uma shaqaysaan Mustafa dowlad baa u shaqaysaan 12 milyan baad wasiir kasta u shaqaysaa oo dalka u fadhidaa uma fadhidid qabiil baan leenahay haddaad wasiirada qabiilka moodayna u shaqaynaysaan oo qabiil ma jiraan leenahay maanta laga bilaabana xafiisyadan ka shaqaynaynaa xafiis kastana waan wacaynaa dhalinyartana toos telefoon goonaan u samaynaya kasoo waxtamaan baan u samaynaya sida kuwa muqdisho baan ugu samaynaynaa ama kuwa kismaayo
ay uga soo waxtamayaan ayaan loo soo wacayaa mustafana waxaan leenahay adiga laftaadu iscasir haddii wasiiradaadu nooca ay noqdeen wasiiradaada maamuli karayn oo waddankaada mustafa oo maamuli karayn oo golihii wasiiradu qabiil ay ku shaqaynayaan mustafa oo iscasir baa leena walaal in badan baan ku taageeray dib kuu taageeri mayno wasiiradana adaa keenay mustafa oo dadkani mid shacabku ma keenin adaa keenay golihii wasiirada hadduu qabiil ka dhex bilaabana ummadda soomaaliyeed waa baaba weeyaan waa hoog weeyaan waa khasaaro weeyaan waa dhaqan xumay noqonaysaa corruptionkuna ha dhacaa leenahay musuq maasuquna ha dhaca baan leenahay ha dhacaa leenahay corruptionku musuq maasuqu ha dhaco cadaalad darraduna mustafa ha dhacda baan leenahay arrintuna sida la moodayo ku socon mayso arrintu qaabkaad moodaysaan mustafa ku socon mayso waase waa laga casriyaa waa la casriyaa waa la casriyaa wax la garo waa la casriyaa ya xaq baan leenahay cod baan leenahay iscasil baan leenahay waan u sheegaynaa weliba laba qof iyo saddex qof baan soo qabanayaa habeen dambana waxaan idiin soo diyaarinayaa dhalinyartan qabyaaladda lagu sameeyey abiyuuska lagu sameeyey xafiisyada lagu wargaraacay baan habeen dambe codadkooda aad dhegeysan doontaan waxaan idiin sheegayna been ma aha wallaahi been baa idiin sheegay jigjiga baal qabyaaladoo tii ugu darreyd baa ka socota dunida aan lagu arag baa ka socota kala sarreyn baa ka socota dabaqyaa ka socota hindi ay noqotay dabaqada dadka guryo uma jeedo waxaan u jeedaa nolosha dadka dabaqya markaa leeyahay guri la dhistay maaha dadkii baa noloshooda dilba kala tagtay qaybna faqiirkii ku yihiin qaybna 3 bilood cirka ku tegeen mustafana inaa kala fur baan leenahay ummaddan dhibaata hore soo gaadhay dhibaato badan mustafa inay soo gaadho kale ma doonayno waxaan rabnaa ummaddan inay cadaalad ku nooladaan nabadgelyo ku nooladaan sinaan ku nooladaan nimanka ina cagtar iyo caydiruus ay ka mid yihiin madaxtooyada soo dhaafi baan leenahay haddayna dee ugu jirin xididnimay qabiil ugu jirin awoodda ina cagtar dadka ugu hanjabayo qandaraasada uu leeyahay waa idiin diilayana mustafa adaan ku weydiinaynaa adaan mustafa cagtar oo ku weydiinaynaa sabab qandaraas baa idiin diidana iyagii caydiruusna waa in adeerkaa ina cali shucaana walaalkaabaa walaashii qaba dowladda markaa caddee inay dowlad xidid isu ay maamushay ummaddu leeyihin labadaasa lagaa rabaa labada arrimood baa mustafa cagjar oo lagaa rabaa dowladdani waxay tahay cidda maamusha shaqadaad qabato meeshan waxaa lagu keenay baa lagaa rabaa shaqayna mayso hunuunuu shaqayn mayso aamusina mayno lacagna annagu ma kaa qaadano cidan laaluush ka qaadanaana ma jirto waanu hadlaynaa waan hadlaynaa kuwa qabeelada ha u waartaan waxaan leenahay cadaalad ha u waartaan leenahay kuna taageeri mayno madaxweynaha markaan qalad intaa ilaga aragna ma taageerino ku taageeri mayno ku taageeri mayno qabiil in adeertinimo ku taageeri mayno tolnimo ku taageeri mayno mustafa waxaan ku mucaaradaynaa waa shaqadiisa waxaan ku diidaynaa ku ogolaanaana waa shaqadiisa shaqada fiican uu qabtana waan ku taageeraynaa ta cunaysigii dowladdiisa qabtaana waan ku cambaaraynaynaa arrintu saas intaas weeyaan arrintu waa intaas wuxuu qabto un baan anagu sheegaynaa wax kale ku dara mayno kana dhigi mayno waxaan ka dhimaynaa ma jiraan inta uu qabto keliyaanu sheegaynaa miyaana ceeb ahayn anigoo intaan maanta qurbaha ka tegay madaxtooyada intaan fadhiistay shakhsiyaad waddanka jooga oo masaakiina u hanjabayo miyaana ceeb idinku hayn intaan madaxtooyada galoon moobeelkayga soo qabsado aan uga soo hanjaba shakhsiyaad gobollada ka yimid oo shaqadoona ama qandaraastoona aana heli maysaan miyaan ahayn awood markaa qofkaasi una lahayn u isticmaalaya miyaan ahayn waddanka hadduuna madaxweyne baa maamulaya meesha ya barnaamijka asxaabi waan soo gabagabeynayaa xog ururin badanna waan samaynaynaa war iska fadhina miskiin oo fita buran baatana carna lama soqonayo qashino iska fadhi xog ururin badan waxaan samaynaya aan idiin sheegayo dhalinyarta qabyaaladda lagu sameeyey ee loo abtiriyeen habeen dambe waan soo diyaarinayaa liveka ayaan soo gelinayaa
live kan soo gelinaya qoon dheerta magaalada Jijjo taan wareysanayna sidaan kuwa Kismaayo wareystay kuwa Muqdisho jooga wareystay baan wareysanay habeen dambe caawa live kii hore Soomaaliya geliyay kii horena way waxmaaday raalina hada balantuna habeen dambe inoo noqonaysa hadii la yiraahdo habeen dambe ayaynu si fiican u qaada dhigaynaa nabadeena nolol baad leeyahay guul iyo gobonnin baad leeyahay wixii la soo qaban karana waan soo qabanayaa haddii ay suurtagal noqoto ya maxaa matana ma soo qabsan karaysin adeer ogbishaadna gacan ma ku tagna gacan ku tagna ma jirto waa soo qabsan ya ninkaas hadduu qabsan kara waa wada ka tegay dhammaantiin ha odhanin yasmiin ha odhan mukhtaar halo asalaamu calaykum وعليكم السلام بوبسي قدامي aad baan kuu salaam adeer caawa fikradad ka hadisay qablaadadka ka hadisay kolley ninka madaxweynaha aan malaynayaa inaad ka hadisay kan waxa weeye madaxweynaha loo doortay jijiye fadhiya soo ma isaga iyo golaha wasiiradu soo dhistay baan ka hadlaynay qabyaaladu halkay maraysaan ka hadlaynay kala sarreynta dadkan ka hadlaynay awoodda dad shacab ah dad shacab u adeegsanayaan oo madaxtooyada joogaan ka hadlaynay oo dad waan jabayaan ganacsadayaal ama waddanka wax ka ama ururo siyaasadeed oo dirmidiid ka mid yihiin baan ka hadlaynay meelo badan baan ka hadlay intaad hadli karto ka hadal nyon waxa weeye waxaan u malaynayaa ninkan Somali state buu madaxweyne u ahaa laguna soo doortay ninkan awal hore waxaan u malaynayaa dulmadiid inuu kamid ahaa se hadda waxaan u malaynayaa nyon inuu wuxuu balaha maalin dhaweeytay maalintii Cumar Ismail soo dhaweynayay ogaadeen ha noolaato madaxweynahan dee waa xaafad madaxweyne weeye madaxweyne uma aha Somali state waan gartay ma fahantay marka dee madaxweyne la xukumo weeyaan oo wad ogtahay gobol oromada iyo Soomaalidii inay isleynayaan maalin kasta kama hadli karo madaxweynaha oromadu kolka laba nin oo Soomaali la laayaba uu ka hadlaayo si fiican dagaalka u galay buu yiraahdaa waan gartay marka liibaan maanta wada arkisay dagaalka ka socday iyo mooyaaliya halka marka waxaan u malaynayaa de ninkan madaxweyne ma aha waa madaxweyne la soo dhadho kolka hore lagu soo doortay Arsaba nin madaxweynaha mustaqbalka Somali state u noqon kara inuuna ahayn baan u malaynayaa ina uu madaxweynaha ahaan ka waa ama title-kiisa taaban madaxweyne uu yahay waa madaxweyne isaga waddanka ka ah title-kiisa u diidin uu leeyahay xaqirin laakiin shaqo xumadiisa ka hadal iyo cunsuriyadda qabiilka ka hadal iyo kala fogeyn dadka laakiin madaxweyne uu yahay taa title-kiisa isaga gelin waxbaan ku sheegayaa qabyaaladu waxa weeyaan qabyaaladu halkay ka taagantaan ku sheegayaa hadda gobolka Faafan waad ogtahay waa caasimad gobolka dhagax buur waa gobol waxa weeye gobolada kamid ah hadda gobolka dhagax buur oo kale sida loogu soo noqday ama sida loo dhisanayo ama dadkii ganacsatada ahaa ee awal hor ka maqnaa u dhisanayaan uu dhista leeyahay gobolkiina shaqa abuur waa idin sameynaya rag badan oo aan u aqaano oo saaxiibaday ahaa ayuu shaqa abuur siiyay oo halkan ka tagay Muqdisho ka tagay marka waxaan u malaynayaa inuu waxa weeyaan uu sii socon karin oo xaafad uu siinaya dadkii shaqada marka waxa leedahay waa madaxweyne beeleed mad ka wada marka hadalkaaga madaxweyne beeleed weeyaan madaxweyne waxa weeyaan waliba waxa weeyaan raacali weyn malaynayaa raacali laftoodu way dhawaaqayaan way dulmayeen waxa ma haysana bay leeyihiin xuquuqdeedii uu noo diiday bay leeyihiin iyaga laftoodu way dhawaaqayaan marka ayaynu dhageysanaynaa iyaga laftooda qaar baa cabanaya waxay leeyihiin anagu waxba kuma lihi dowladdan wuuna fogeeyey bay leeyihiin waad ogtahay madaxweynaha way ku leeyihiin oo waxa weeyaan madaxtooyada oo dhan bayba joogaan oo waxa weeyaan dhalinyartii jid waaqaya meesha joogtay ama dulmadiidka nin dulmadiid ahoo isagoo soo dhaweynaya ama madaxii dulmadiid ah ama rag siyaasiyiinta dulmadiid ah haystay meesha isagoo ag fadhiya ama soo dhaweynaya ama isagoo la tashanaya midna ma jiro se nin adeerkii unbuu la tashadaa uu ag fadhiistaa ama Kenya ka yimaado ama Mareykan ka yimaado ama meel kale dibadda kale ka yimaado gabadh yar oo foodlay oo on alaf haday garoonka wilwal ka soo tagto isagoo calanka on alafta waa ku hortaga anagu hardaan beesha jid waaqnahay anagu waxaan u aragnaa inuu madaxweyne beeleed yahay inuu madaxweynaha Somali state inuu ahayn dhalinyarta jid waaqna saasoo dhan marqabnaa
olaf iyo ogaadeen wuu soo dhaweynaa meel kasta ka yimaadaan waagii dhaweed ay dulmidiid ku qabsadeen haddii sabab shirkay ka laabteen miyaanu garoonka kaga hormanin oonu soo dhaweynin kama hor iman yaa soo dhaweey markaa dhalinyartii jidwaaqa ama nimanka maamulka ku jira ee Somali State rag maamula u jooga ama rag xil ka haya ayaa jira oo ayaa soo dhaweeyay si isagu wuxuu soo dhaweeyay ama uu ag maray ma jiro madaxtooyadu ku xareysan buu ku xareysan yahay ururkan dulmidiid iyo odayaasha siyaasiyiinta beesha jidwaaqa waxaan maqlaynaa madaxtooyada waa ka mamnuuc qandaraasna waa laga mamnuucooyna cali shoocan ilaa baa u diiday xaydaruus ilaa baa u diiday warkaa maxaad ka haysaa ina cali shoocada wuxuu ku dhaartay baa qof jidwaaqa inaan qandaraas la siinayn dulmidiid aan odhanine arrintaa maxaad ka ogtahay maya arrintaa waan ogahayo hadda maanta rag ka yimid ama meesha ka yimid jigjiga saaka kasoo duula hargeysa ayaa ila jooga arrintaa wax badan baan ka ogahay waxaan u malaynayaa in arrimahaasu aynay qarsoobe aanay lahayn rag badan oo reer dhagax buura iyo rag badan reer qabdahara ku tartamaya ina shaqo abuur la siiyo ama waxa la soo dejinaya la siiyo ama wasiirada dhaqaalaha ama la siiyo nin jidwaaqa inaan dhaqaalo laga ilaaliyo meel kasta iyagaan ayaa ku tashanaya se wax soconaya oo u soconaya inaynay ahayn iyaguba way ogyihiin aniga shaksiyada soo wacayaan ilma odhan ina cagjar baa noo diiday laakiin waxaa noo diiday baa ina cali shoocaa ina cali shoocaa baa madaxtooyadii dadka u diidaya dulmidiidkii madaxweyne ayaa kala ilaalinaya markaa ma waxaad leedahay ina cali shoocaa madaxweynuhu maadaama ay seediyiin arrintan isla raalli buu ka yahay in qaabkaa loola dhaqmo oo dulmidiid sharafta laga qaado oo la karbaasho weliba dulmidiid nina karbaash kari maayo inuu iyagu wax karbaashaan mooyo horta anagu dulmidiid haddaan in anagu wax karbaashna mooyo nina nama karbaashi kara ma fahan waaba la karbaashaya walaal waa loo hanjabaya telefoonaa loogu hanjabaya iyagoo jojo waan la soconaa taa lama qarinayo beenna maaha anaa taa ku horta aan kuu sheego taa anagu inaan anagu hanjabno mooyo iyo waxba nama hanjabi karaan waa niman marti waxaa loogu hanjabayaa shaqana lagu siin maayo dil ka hadli maayo waxaa loogu hanjabayaa qandaraasna ma qaadanaysaan shaqana la siin maayo madaxtooyada ma soo gelaysaan taana kuuba maye madaxtooyada horta fiiri madaxtooyadu waxa weeyaan madaxtooyadu waa madaxtooyada xaafadeed anu waxaan umaan kaala hadlaya cami maaha warwar maaha intaasna way jirtaa telefoonna waa loogu sheegay waana loo hanjabay in wax qandaraasi ka qaadanayn madaxtooyadana qandaraasku ti sii socon oo laga dhabayn may tahay mise ma aha tu sii soconaysa ma aha waa tunna siiya laleeyahay ina calshooca meesha u fadhiyo inagu ka hadli mayno waxa soo socda taagan baan ka hadlaynaa guddoomiye ka taagan ka hadal taas baa jirtoo taagan waxa taagan baan ka hadlaynaa haddaan ka hadlo taagan haddaan horta ka hadlo madaxweynaha waxaan usoo jeedinayaa inay Somali State isku mid tahay qabiilo badan oo Soomaaliya meesha degan haddaan jidwaaqa ma ogaadeen yidhaahaa iska badhaaf Soomaali badan baa degan oo 5 Soomaaliyeed ba ka kooban si xaq ah waxa loogu wala sameeyo waxa weeyaan xaqa waxa weeye meesha ha loogu wala taliyo si taladaasu tala Soomaali oo dhan hadii ka dhaxan weydo inay sii socon godku in ilay galay ama uu ku jiro inuu gali u maro maleeyaa ina shooca iyo rag badan oo naqaano oo hadda ag fadhiya madaxweynaha inay waxba u qaban isagu uu ogyahay waan gartay marka hadda sultan waxaan ku aad baan ku salaamay arrintaada halka ka sii wad ayaan dhawitaan kala fikrad baan ahayno waxa weeye fikrad gaaraan adduunka aaminay marka aad baan ku salaamay waxa weeye salaam saran kule anigu cami cidna ma u shaqeeyo jidaaqna ma u shaqeeyo ogaadina ma u shaqeeyo fikirkaygu meeshii qaldan baan ka hadlaa dulmidiidna ma u shaqeeyo afkoodana ma ku hadla anigu shaksi baan ahay kolba meeshii fikirkaygu galana waan gelayaa marka aniga fikrad ma iga qaadan kartid waayo sababta anigu qof xora baan ahay dulmidiid lacag kama qaatayna cagjara kama qaata meeshii qalad ka jira nal baan ku shida anigu haddii lagu yidhi jidoq buu hadlaana jidoq kaliya anu ma u hadlayna ummadda Soomaaliyeed baan u hadlaa markaasaa ula soco aad baa mastaada midna ayaadan u hadline fikrad baan kaa qaatay baa tiri fikradaad iga qaadatay anuu markaan u arko dan oo laf waan taageerayaa isaga markaan u arko waddo toosan uu ku socdana waan taageerayaa wixii qaldana oo laf wadaana waan ka hadlayaa ina cagjaro baan ka hadlayaa dulmidiid qaladkay wadaana waan ka hadlayaa baydhabo waxa ka socdaan ka hadlaya hargeysa muqdisho meel kastaan ka hadlaya aad baan wasta ku dameeyey
يا علو قصو هذا نادي حرب أنا هذا كرنا به يا أنا أنا أحسن يركز من سوق بنا بس قام بدل سوق بلا من سوق بتي هذا صورة كشيء هذه كستمو أنت كتير يا واسع عامل عشان سبعة سوق سويدي يا عندنا يوسف راعي سيدنا ده معكم سمية صدرنا على سلام سلو معكم صدر الوارك ما يوسي هذه يقولوا قاسو يا دك سقطي والله نيرو يسرع ده بوتر كنت بوتر حاول كنت تور ماني هاي السلام عليكم دايرو. عليكم السلام عليكم السلام ايوه خير الحمد لله تبقى هروب وليد جدوا قيل اللغة كسر هواشان بهذا باش اسكورتي من هذا أنا قرن بماية دتك ما أسوي حشران كابانا ده dhalinyar badan baa war way dhacday waxaan koori dadka luuq dayro inaadeerow talka inaad aragto ma fiicnaane tanaad u helisee farmaajo iyaga waa candho wadaagay maad ka hadashid رئيس الوزراء iyo farmaajo barnaamijku seedi ah farmaajo ma daayo khayr waa karbasha adigoo karbaashiisa kuma arkine يا ما مركو سعية ولا وارو horta waxbaan kuu sheegayaa walaalo hadda qodobka dad islaan yihiin waxa xaqiiqda inay ka hadlaan ba wanaagsan ma fahanti waasax ayagoo wax kasta ilaahay uga baqahaya kursi horta walaalo haddii lagu fadhiisto kolley wax yaraha xamxama way soo geli ma garato qandaraaskan iyo maamulkan iyo waxaan oo dhan walaalo ummadeenii oo fara badan ma wada deeqi karto inagu cadaalad ma qaadana qandaraaskii baa tiri marka waxaan rabaa inaan kuu sheego horta waxaa khalada walaalow anigoo maanta khalad diidanaa inaan qof kale aan dulun ku sameeyo walaalo wax laga fiican yahay ma garato waa sax walaalo waa wada sameeya Soomaali Maxamed halka wada degto dhan dawlad deegaanka degta ruux kasta wuxuu qaban karo ama calaf uu ku leeyahay inuu qaataa wanaagsan in la bidixeeyay aad baa looga fiican yahay ma garatay waan gartay dawladaha waxaa sameeyeen walaal barakaba ma laho hore inooma sii socdaan waxaana aad u sii bata bidixeyntaas sii badan ku kaloo dilmadeertiinba meel kale ka imaan ku kala badan marka hawshii waxay noqonaysaa wax iska cad ma garatay kuwan dulmadiid lagu leeyahay adiguna aadan ahaan jirin aniguna aanan ahayn walaalo marka horeba iyaga iswada ma garatay maanta haddii dulmadiidkii ay wax isla fahmi waayeen oo laga bidixeeyey anugu waxaan u arkaa kolley wuxunbaa meeshaa ku jira wixii meeshaa ku jira ha la soo saxo
وردتك ماشي قرب شوقتنا ولا الودن كده وحبه كمان هو كتاين دليل رفر بدن أو ودن كود شيء أو وحكو صابرتي أو ولا الباهي هاي صار بينه كل شقة يستوي حسابرتين بابا ما قرأت صح إن القربها شوقة أو ما كستشقد وكابل جرستها وهلي كرو إنه يعني حياتك dhalinyar shaqo raadayso weligeed kastoo أيه shacab baan ka hadlaya dhalinyaro ila socdaa kuwa jooga toos waddanka joogta وارون دايرو أنا walaalkay iga yar wuxuu ka shaqaynayay 5 sano email buu gudoomiye ka ahaa أنا عكر dadku u yeeray buu kamid ahaa waa loo yeeray shaqadii waa laga fadhiisay waa bidoon sabab waa gudoomiye bidoon sabab shaqadii waa laga fadhiisay hada wuxuu iska joogaa qabdaar buu iska joogaa soo bilaa shaqo dadku waxaas ku dhacay ma garatay 5 sano dhan dawladdu shaqeeyay 5 sano dawladdu shaqeeyay gudoomiye u ka ahaa meesha bidoon sabab baana looga qaaday cadaalad darro markaa ahayn ما هو عدالة ضرة لكن أنا قلبي وحن كو قبوجسنيا ولا لو قفكاس inuu ceeshkiisii ka soo dhamaado meeshan ka cunay ma garad sidee kula taagayso aad iyo aad arrin aad u falxun weeyaan laakiin walaalo maamul oo dhan bay waxa ka dhacdaa maamul oo dhan bay waxa ka dhacda waa aad wax u falxun waxa fiican dadka maamulaysa qoys ma yahay walaalo waa dad dhan oo qaran ah inay baash isku dhaf noqotaa fiican ma garad haddii la yidhaahdo halkan wasiirka magac kaga raadsan may walaalo ina cagtir waa qof laynoo keenay maadaama laynoo keenay inuu inagii inoo shaqeeyo weeyaan shaqadii soo baxdan inuu dadkii u qaybiyo weeye ma ahan inuu ku inaadeerkiya keeno ka inaadeerkiyaana inuu asaga oon madaxweyne ama ogeyn ama la socdaba inuu dad kale ilmaadeeradii oo keeno walaalo wax laga fiican yahay dadkaa ku kala dhinta dhalinyaradani waxa taariibta ku soo wada gelinaya meel ugu rafaadayaane dowlad goboleeday la soo aadayaan arrimahaasoo meedho qofku shaqalaan markuu ku noqoto qutulyoonkiis meel ka soo saarta markuu waayo meel kale iska aaday ma garato dowladda waxaan dhahaynaa cod dheer iyo cod gaabanba waxaynu ku dhahaynaa dhalinyarada waddanka inta u dhasheen meel aan uga bixin wax ku bartay yaan la kala socsoocina mid kasta wuxuu qaban karo in loo shaqaalaysiiyo weeye ayadoon la kala soocin oo qabiil lagu kala soocin madaxweynuhu waa inuu taa fiiriyaa waa waxaynu shalay diidaneen dee walaalo miyaynu qaadan karnaa inama maraysee taa shalay baynu diidanayn maantana ina cagtir inaynu ka qaadano ma aha codkeenna oo dheer baan rabnaa inaan ku gaadhsiino waa inuu madaxweynuhu dadka hoos u fiiriyaa ta kale walaalo shaqaalaha waxaaba ka daranba madaxweynaha jigjiga keliya madaxweyne uma aha ina cagtir mooyaala waxa ka socda waa inuu fiiriyaa oo muxuu ahay tunigudeed waxa ka socda waa inuu fiiriyaa oo waa inuu fiiriyaa dirdhaba waxa ka socda dhibaatada soomaalida haysata ee dhiigga maalin kasta la daadinhayo ee sida xun weliba loo jarjarayo loo gogoynayo ina cagtir inuu fiiriyo weeye wuu saas u hundadaa kolba habar buu meel ka soo qabanayaa uu leeyahay muxuu ahay maxaa lagugu sameeyey dowladdii hore maxay kugu dowladdii hore waa ku daysay adiga reer naaw adaa kursiga ku fadhiidee war shacabkaaga u naxo shacabkaaga fiiri war ninkan xabashiga ah ama oromaga ah kuma adiga cabdiila idima kala jeclo soomaali baan u tiidi war soomaali baa xataa ka uraaga ah agtiisa waxaad ka qorantay qof soomaali aad ka qorantahay muslim kasta qof kasta hadduu ahaado soomaali baa tahay
xabashadana oromadana gacan mooye wax kale igu ku leedahay ma jirto walaalo waxba kuma aha dhibaatada maanta ka taaganaad badu ogtaa walaalo arrintaa lagu soo celiyaa rabaa ninka runduda ee meesha aan ku jira tigtiga dhex fadhiya war dadkaagii fiiri dadkaagii baa dhammaanaya oo laleeyahay madaxweynuuna soo gaadh xaggee buu ka marayaa subxaan allah walaalayaal waxaan leeyahay aniguna war ha layska celiyo oromada soomaaliyay walaalaanu nahay doon baad haysaana walaashiin walaaladin waaye oromo walaalo idiinma ahee islaamnimada xataa salaada si kale u kala tukataan baan u malaynayaa qof oromo ah oo soomaali baan walaalo nahay la soo istaagaya ma jirto laakiin ku soomaali ah oromo waa walaaladana waa deriskanada leh unbaan arkaa bareemo yaalow shalay waxaad samaysan wax wanaagsan baa samaysan birta ka asla oromo gacan bay taqaanaaye ilaa ood meydkiiooda daadisaan oo sida meydkiina loo soo wadhayadu wadhaan iddibiyi ka dhigi mayso reetulli guuleedu isku tashada war muxuu diradir dhow isku tashada war intaa haddii lasoo maro wallahi jigjiga inaan la wada fadhinayn inuusan madaxweyne kasii ahaanaynin jigjigo inaa cabjir hawshaasa u taalla dhallinyarada qurbaha ka tagtay nin kasta sii xidhxeedanaya inaad adeerkay baa qabsaday leh war ninka madaxweynehu matiida kuwii masaakiinta ay jooga yaad madaxweyne u tahay kuwaa waxsii kuwaa markaad dherkiso unbay qurba joogta soo geli karaan qurba joogta markaan bay soo gelayaan aad masdoono laandheere ma qabsan karaysiin adeer laandheere kaaway afkaad ka tahay waa igu wallaahi itoosi igu sawir yaa oryaan miya amoola miya igu sawir calanka miya igu sawir wadani bana gaarayska oryaan miya igu sawir السلام عليكم. وعليكم السلام هذه ورحمة أخبار الله. رجل والسلام يا عذر هذه الدولة ماركتي دمانتي والسلام يا مركورة قلت مركا إكتا كل برنامج كوان للصعدة ماركتي برنامج كسي في عم بنقول السعودية سوى هذا قرن قلت رجل كل صلاة أنتي وحاولي أن ماركتي وأري لقاهم هذا inay noqdaan yani maamulkii la islahaa waa maamul matala ummadda shanta Soomaaliyeed ee deegaanka degan inay noqdaan maamul Maxamed Subeer horta waa mid aan aad uga xunnahay Soomaalida garan محمد سمير مياه سماء اوكي رجل اي maya waxba adeer waa kala qaadqaadi waa maartay meeshu waa محمد سمير سoo kuwar cabaadaya reer Cabdilla waana la xasuuqaya anagana la baabinaya ee ninba meel ka dhacay Soomaa wadaan tamarodi adiga lagu qancinayaa waxaan waxba kama jira Soomaalida garan okay rogol fikraga dhibo marka waxa weeyaan maartay dhulka waxa ka socda dhan baynu la soconaa maamulka Maxamed Subeer maartay waxaan leenahay war filinkani waa filinka wax ku fashilmay joojiya ummadda Soomaaliyeed maartay ama wax u qabta ama wax weeyaan maartay هذا ماشي عبدي بعد ميسان وهويان إيه مارت أورتنا سروسي عبدي لي وضد الصاري هدي أكلها بن ويدان iyo tulgulad aad wax ka qaban weydaan hadda waxa weeyaan marti meesha joog meesay waxa weeyaan marti wala isku kaliya jigjignimada han maysto wala isla xisaabtamay bal meesha ku dambeysaan baan eegayaa marka waxa weeyaan waxaan leeyahay shacabweynaha Soomaaliyeed kale hormeesha maamulka dowladtaan ma jireen waxa weeyaan inta saabushaan ayhiina mustaqbalka ka tashada iskurursada dhalinyarka ahaan waxa weeyaan ma garanaysaa xuduudaha hala geeyo ciidamada iyo dhalinyarada dhinaca jirada waxa weeyaan maartay iyo odayga yar meesha tagay magaca macnaha waa dhowr qof oo qowlashata oo Maxamed Subeer suursado marka aan matalin marka inaad tashataan oo waxa weeyaan mustaqbalka ayhiina aad ka tashataan baa loo baahan yahay shacabweynaha Soomaaliyeed waxa weeyaan Soomaali state guud ahaanba waxaan leeyahay kooxdan budhacde maartay Maxamed Subeer
war adeero waa filim maanta aad ku jirtaan ee jigjiga aad maaragtay waxa weeyaan ku wadaan degdega u joojiya xilkana محمد iska سمير tiri با محمد سمير با بسوا عند وذاك innaga waa filim adeero waxani waa dhaanta laynoo tumayo soomada garan laakiin baasha hoosta ka xidhiidhsan tahay waxa weeye hoosta ka xidhiidhsan tahay oo waxa weeyaan dadkan kale lagu qancinayaa shacabkeenna lagu qancinayaa iyo ummadda kale soomaaliyeed ciise iyo maaragtay jidwaaq iyo gari iyo beelaha kale soomaaliyeed baa lagu qancinayaa marka waa dhaanta maroodiga maaragtay waxaas inayna ka dhaadhicin waxa weeyaan baasha hoosta ka xidhiidhsan tahay laabta la wada garaacaya marka waxaan leeyahay shacab weynaha soomaaliyeed war wax idin matalay ma jiro habeenna kumay fikirin inay maaragtay idin matalaan walaa nlf walaa waxa weeyaan ma garanaysaa mustafa cagjar marka waxa weeyaan dhagax wajaaf intaad qaadataan madaxtooyada ka dareeriya oo nlf iyo maaragtay waxa weeyaan maamulka in cagjar uu samaystay kooxda maxamed suweere burcadda soomada garan واقرت hadde marka waxa weeyaan adeerow meesha way shaqo yimaadeen maaragtay meesha ummadda waxay u qabanayaan maana arage weli tulli guuleed muu tegin dadka tulli guuleed laga soo guray baa meel la geeyey laleeyahay dadka markii la keeno maaragtay waxaan u jiraa isbitaal ayuu yidhahdaa waan booqanayaa weli tulli guuleed ismuu taagin mooyaale muu tegin muxuu ka minaaq yahay micnaha muxuu qabanayaa masana baa qofka oo nlf maaragtay airport ka soo degan waxa weeyaan saasuu dooda ugu ruxaya waxa weeyaan ma garanaysaa war adeer dee jigjiga noqon mayso waxa weeyaan maaragtay meel barafka la iskaga cabo waxa weeyaan qabyaaladda lagu koriyo laga yaabaa marka cabdiina inuu boqolkiiba boqol ka fiicnaa ninkan aad iyo aad isumaba dhowoba marka cabdi baynu ka dhawaaqayna kana waynu ka dhawaaqaynaa goormaynu dhawaaqa joojinayna marka ummadda soomaal joojinayaan hadda adeer macnaha waxa weeyaan waxaanu qashka u bixinaynaa haddaanu nahay reer dulmidiid ama maaragtay ururka soomaali galbeed dulmidiid haddaanu nahay waxaa inta aan ku shacab weynaha soomaaliyeed inay ka baxaan cadhaadh iyo